ma tahay qof waqti badan geliya hadallada ay dadka kale ku dhahaan, wax kasta aad tiraahdo iyo hawl kasta aad qabato iyo go'aan kasta oo aad gaarto, mar kasta waxaa jira dad kaa haysta fikir adiga kaa soo horjeeda. haddii aad u ogolaato dadka afkaartooda inay saameyn kugu yeeshaan, keliya kuma dhaawacayso, balse sidoo kale waxayba noqonayaan shakhsiga aad tahay. ii ogolow inaan kula wadaago 6 waxyaabood oo aad isaga joojin karayso ka walwalidda waxa ay dadka kale kuu malaynayaan. maba jiro qof adiga uun ku daneynaya. ma tahay qof ka walaaca inay dadka ka helaan iyo in kale? ma ka walwashaa qaabilaadda aad ka hesho qof aad hadda la kulantay? runtu waxay tahay in qof waliba qumanihiisa qoorta ugu jiro, ayna mashquul ku yihiin tooda, fursad badanna aysanba u hayin inay aqoonsadaan taada. sidaa daraaddeed jooji iska dhaadhicinta ah in dadka oo idil adiga kugu mashquulsan yihiin. 2 isweydii qof noocee ah ayaad doonaysaa inaad noqoto. ma waxaad tahay qof la nool fikradaha dadka kale iyo aragtiyaha ay u soo gudbinayaan, mise qof fikradiisa iyo aragtidiisa uun mudnaanta siiya? haddii aad u ogolaato dadka kale afkaartooda inay saameeyaan noloshaada, waxay ka dhigan tahay inaad gacanta u gelinayso awooddaada iyo jiritaankaaga. weydii naftaada maxaad doonaysaa, maxaadse ka heshaa, maxaadse ka helin. 3 aqbal qaladaadkaaga. ma tahay qof jecel perfection ama wax walba inay okay ahaadaan? ma mid dookhaaga ahbaa, mise waa mid aad dareemayso inaad ku khasban tahay? haddaba ceersashada yoolkaas waa mid aan miradhal lahayn. marka aad si weyn ugu walwalayso qof kale aragtidiisa taasoo adiga kugu saabsan, waxay waxyeeleynaysaa kalsoonida naftaada. aragtiyaha qaar ee negatiifka ah ee aan ka aaminsannahay nafsadeenna waa kuwa caruurnimadeenna nalaga dhaadhiciyey. hal dariiqo oo aad ugu guulaysan karto ayaa ah inaad aqbasho dhimaalada nafsadaada. 4 noqo qof si wacan u xulanaya waxa uu danaynayo. furaha farxadeed ee nolosha waxaa ka mid ah inaad ka fiirsato wax kasta oo aad ka dooranayso nolosha, inaad waqti ku qaadato ka fikiridda waxa ugu muhiimsan iyo waxa aad doonayso noloshaada. waxay kuu suuro gelinaysaa inaad keliya fokaskaaga ama diiradda saarto waxa kuu muhiimsan, iskana ina tirto waxa dadka kale kuu malaynayaan. 5 aqbal inuusan qof walba kaa helin. nolosha dadka qaar waa kuwa kaa hela, qaarna waa kuwa kaa soo horjeeda. taasina ma ahan wax dhib lah. ugu bahanshiyahaaga iyo dabciga gaarka ah ee aad leedahay waxay kaa dhigayaan qofka aad tahay. waxna kaama gelin waxa ay dadka kale kaa aaminsan yihiin, waayo waa caqliyad iyaga u gaar ah, mana ahan taas wax adiga shuqul ku leedahay. mar kasta waxaa jiri doona dad kugu aqbalaya, kugu taageeraya, kuguna naxariisanaya waxa aad tahay, waana kuwa u qalma inaad la jirkooda ahaato mar walba. 6 u dhiiro inaad challenge ama loolan samayso. ma tahay qof ka baqa inuu khalad sameeyo? sidoo kale ma tahay qof aaminsan haddii uu wax ku guuldaraysto inuusan wax kale u qalmin? dabcan waa wax la xidhiira barbarintaada, taasoo laga yaabo inay waalidiintaada mar walba kaa ilaalin jireen inaad khalad samayso si ay halista kaaga badbaadiyaan. waxayna taasi keentay inaad ku dhiiran weydo gaaridda waxa aad doonayso nolosha. marka aad meel iska dhigto cabsida ah inaad khalad samayso, aadna u adkaysato xanuunka kaaga imaanaya guuldarada, waxaad noqonaysaa qof aan la celin karin. haddaba ma isku aragtay calaamadahan qaar ka mid ah? nagula wadaag fikirkaaga qaybta kommentiga. sidoo kale ha iloobi inaad subscribe tirahdo kanaalkan, gambaleelkan aad furato si aad ula socoto mawduuca xiga. mahadsanid.